hay-adda hirda ayaa hilibka qurbaaniga ahaa ee udixiyada ee sanadkan 2013 ka qaybisay kaamka mustaqbal labo oo kamid ah IDB-yada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah. madaxa hay-adda hirda ee magaalada Gaalkacyo Cabdiqani Carabi ayaa sheegay inay sanad walba hilibka Ciidul Adha ay gudoonsiyaan dadka ku nool kaamamka loo barakaco. Cabdiqani ayaa tilmaamay inay sanadkan gaarsiiyeen hilibka kaamka mustaqbal labo oo ku yaala xaafadda Israaca gaar ahaan agagaarka Cirjiif. waxaana gaarsiinay dadkii lagu talagalay masaakiinta ahaa oo hadda wada arkaysa oo ku haboonaa waayo qof walba sadaqada qofku waxay ku waajib ku tahay qofkii lagu talagalay kulli barnaamijkiisu wanaagsanaa ayaan u fulinay oo noo xisaabnaa waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda oo ah hay'ad mar u taagan arrimaha bulshada iyo dadka gargaarka iyo caafimaadka waxbarashada mar walbana u helan dadka walaalahooda masaakiinta oo ku tabaaraysan meelaha kaamamka inay garab istaagto aan ugu mahadnaqaynaa waad aragtaan waajibaadka aan hadda maaragtay halkan ku sugannahay sidaan u gaarsiinay dadka ku nool kaamka mustaqbal labo oo ku yaala xaafadda Israac ayaa sheegay inay hilibkan heleen iyagoo u mahadceliyay mas'uuliyiinta hay'adda hirda. Anaguna waa ku doonay waana u baahnay ummad masaakiin oo badan oo kaamka degan wax la mustaqbalku baahidii waan ku farxnay aad iyo aad baan ugu farxnay sababtoo ah baahi ballaaran baa kaamka jiray marka waxaan codsanaynaa ilaahay iyo intii islaamaba waxaan codsanaynaa oo waxaan u gaari karnaa oo dadka wax siin karnaa in haddana intaas iyo in dheeri oo kale inay ugu dadaalaan maaha meeshaan waxa weeye kaamkan ilaa dhowr boqol oo qoys baa degan baahi badan baa ka jira hadda cid ay ku tiirsan yihiin arda wala wax ka sana hay'adda ku hogmaan arag aan uga mahadnaqaynaa dadkii macaawinadan islaamka ahaa oo soo jeeday dadkan masaakiinta hirda hay'adda hirda oo mahadnaqaynaa marka koowaad hadeed waxa weeye wax u baahan baa la siiyay dad u baahan baa macaawinadan la siiyay oo masaakiina oo sadaqadu ku baxdo hada khayr Allah siiyay leenahay hay'adii siisay dadkan macaawinada tan baahida ballaaran oo ka jirta kaamkana insha Allah ta'ala waxay ila taayiraysan noqon doonaan deeqdooda midii inta ku sugnaatay waxay noqon doontaa Ilaahay ka rajaynaynaa mid sii socota oo walaalahooda ay la shaqeeyaan oo arinta ku dhamaan inay noqon doontaan Ilaahay ka rajaynaynaa waxa weeye ayagana waa u mahadcelinaynaa dhalinyarada noo keentay oo hawshaan u xil saaran waa u mahadcelinaynaa dadka islaamka ah sadaqada la baxo dulxada bixiyay waa u mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahad iska leh laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto baahida kaamka ka jirta dhan ay tahayba daddiin doona inay noqdaan baan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka aan lahayn awoodda dhaqaale ee ku nool xiriyaha loo barakaco ayaa xilliyada ciidaha gacan ka hela walaalahooda muslimiinta ah si ay ula wadaagaan farxadda maalmaha ciida. Sayyid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara, Somsat, Gaalkacyo.